dunida waxaa saameyn weyn ku yeelanaya kacdoonka dhanka tiknoolajiyadda ah oo dunida oo dhan saameyn ku yeelan doona gaar ahaan dhanka shaqooyin fara badan oo hadda la hayo ayaa suuqa ka bixi doona dad badan oo ka shaqeeya hay'adaha dawladda iyo shirkadaha ganacsiga guud ahaan dunida waxa ay la kulmi doonaan shaqo la'aan waxa shaqadooda gali doona tiknoolajiyad cusub oo markaasi bedelaysa ha noqdeen xafiisyada shaqooyinka xafiisyada ama ha noqdeen kuwa muruqmaalka ama xoogsiga ah iyo sidoo kale dhanka warbaahinta waxay ka mid tahay dabcan meelaha ay sida weyn u saameyn doonaan tiknoolajiyadda casriga ah dunida oo dhan shaqooyinka qaar ayaa si soo taraysa u bixi doona maadaama tiknoolajiyadda cusub ay gacan ka geysanayso beddelka shaqooyinka ay hadda aadanuhu qabtaan waxaana halkan kusoo gudbinayaa qaar ka mid ah shaqooyinka isbeddelka ku dhici doono 3 sano ee nagu soo fool leh qodobka koowaad waa kaaliyaasha xafiisyada ama dadka ka shaqeeya xafiisyada waxaa beddelaya codsiyada softwareka iyo robotyada xafiiska automationka iyo barnaamijyada caqliga macmalka ah ee AI ayaa si fudud u fulin kara howlo ay ka mid yihiin isku dubaridka jadwalada iyo habaynta macluumaadka si ka taxadar badan oo ka saxnaan badan intii uu qofku samayn lahaa qodobka labaad waa gaadiidleyda ama darawallada waxaa beddelaya gaadiidka iswada horumarka gaadiidka iswada oo soo kordhaya isla markaasna dunida kala gaari doona dhowaan ayaa waxa uu sabab u noqon doonaa inay meesha ka baxaan darawallada gaar ahaan darawallada baabuurta xamuulka ah iyo kuwa taksiyada qodobka saddexaad waa suuqgeynta dadka ka shaqeeya suuqgeynta noocay doonto ahaatee waxaa beddelaya robotyada codka ku hadla iyo adeegyada suuqgeynta ee AI-ga codsiyada AI-ga iyo robotyada codka leh ayaa si joogto ah uga hor imaan kara macaamiisha una sheegi kara macluumaadka cusub waxay samayn karaan wicitaano badan oo xiriir ah qodobka afraad waa shaqaalaha warshadaha shaqooyinka warshadaha qaar ka mid ah ayaa la filayaa in robotyadu ay la wareegaan sida soo saarista alaabta iyo isku ururinta qalabka robotyadu waxay wax ku qaban karaan saxnaan iyo xawaare ka wanaagsan kan aadanaha taas oo markaasi keenaysa in shaqooyinkii warshadaha ay yaraadaan qodobka shanaad tiknoolajiyadda cusub ayaa si weyn u saameyn doonta warbaahinta iyo shaqooyinka wariyaasha iyadoo markaasi keeni karta isbeddello waaweyn oo ku saabsan sida markaasi loo qabto shaqada iyo qaabka xog soo gudbinta qorista wararka fudud ee ku saabsan warbixinada dhaqaale ciyaaraha iyo xogaha kale ee ku saleysan tirakoobka ayaa hadda la qabtaa iyadoo markaasi la adeegsanayo AI iyo algorithms qoraalada qaarkood sida warbixinada waxaa si degdeg ah markaasi u soo saari kara barnaamijyada AI-ga iyo kuwo kale tani waxay markaasi keeni kartaa in wariyaasha ay yareeyaan waqtiga ay ku bixiyaan qoraalada fudud tiknoolajiyadda AI ayaa si fudud markaasi u falanqeyn karta xogo aad u tiro badan taas oo sahlaysa in xogahaasi markaasi laga soo saaro xog faham qoto dheer xambaarsan oo ku saleysan mowduucyada AI iyo tiknoolajiyadda kale ee casriga ah waxay awood u leeyihiin inay xog badan ka helaan baraha bulshada iyo meelaha kale ee xogta laga helo weliba si degdeg ah taas oo ah shaqooyin ay hadda qabtaan wariyaasha qaarkood laakiin laga maarmi karo AI ayaa hadda soo saari karta sawirro iyo fiidiyow muujinaya dhacdooyin aan si buuxda u dhicin wariyaashu waxay u isticmaali karaan tiknoolajiyaddan si markaasi ay u abuuraan muuqaal ficil ah gaar ahaan meelaha aan sawirrada laga heli karin amaba ay khatartu ka jirto sida meelaha colaaduhu ay ka jiraan barnaamijyada iyo algorithmka sida Google News iyo Facebook News Feed waxay dadka u soo bandhigaan warar ay xiiseynayaan taas waxaa laga yaabaa in laga dareemo hoos u dhac weyn isticmaalka warbaahinta caadiga ah maadaama dadku ay u wareegayaan warbaahintan cusub ee xiriirka la leh tiknoolajiyadda casriga ah si kastaba tiknoolajiyaddani waa qalab markaasi ka caawinaya wariyaasha inay si wanaagsan oo hal abuur leh u shaqeeyaan laakiin waxay leedahay saameyn culus taas oo laga yaabo inay keento yareynta shaqooyinka qaar ee dhanka warbaahinta qodobka lixaad waxa weeye shaqaalaha dowladda ayaa sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan kara tiknoolajiyadda casriga ah dowladuhu waxa ay meesha ka saari doonaan shaqaale badan oo laga maarmi doono shaqooyinkooda waxayna u jihaysan doonaan inay la jaan qaadaan hababka casriga ah ee ay isku beddelayaan shaqooyinku taas beddelkeeda dowladuhu waxay u baahnaan doonaan in la maalgeliyo barnaamijyada cusub dowladuhu waxay ku qasbanaan doonaan in ay kordhiyaan miisaaniyadda tiknoolajiyadda iyo tababarada taas oo laga yaabo in ay ku adkaato shaqaalaha qaar meelaha
ay sida weyn u saameyn doonaan tiknoolajiyaddu waxaa ka mid ah qaar ka mid ah adeegyada bulshada sida diiwaangelinta dadka, bixinta rukhsadaha, iyo adeegyada caafimaadka ayaa la filayaa in ay si weyn u beddelmaan iyadoo la adeegsanayo nidaamyo dijitaal ah iyo chatbots. Shaqaalaha ka shaqeeya xog ururinta iyo falanqaynta xogta waxaa la wareegi doonaa mashiinada casriga ah, taas oo AI ay ka caawin karto in si degdeg ah loo falanqeeyo xogta loona soo saaro natiijooyin. Sidoo kale, shaqaalaha ka shaqeeya maamulka macluumaadka iyo kaydinta xogta ayaa u baahnaan doona xirfado cusub si ay markaas u maareeyaan xogta cusub iyo nidaamyada casriga ah. Tiknoolajiyaddu waxa ay beddeli kartaa sida dowladdu iyo shacabku ay u wada xiriiraan, iyadoo adeegyada loo soo bandhigayo si toos ah oo internetka ah, taas oo suuragal ka dhigi karta in shaqaalaha qaarkood ay meesha ka baxaan. Shaqooyinka la xiriira cilmi baarista iyo horumarinta siyaasadaha dowladda waxay u baahan yihiin xirfado cusub oo ku saleysan tiknoolajiyadda si loo horumariyo adeegyada iyo wax soo saarka. Marka la eego tiknoolajiyadda cusub, tiknoolajiyadda ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karta waxbarashada dowladda, iyadoo markaasi lasoo bandhigayo habab cusub oo waxbarasho dijitaal ah. Shaqaalaha dowladda waxaa looga baahan yahay xirfado cusub, gaar ahaan dhinacyada IT-ga, sirdoonka macmalka ah, iyo maamulka xogta. Tani waxa ay keeni kartaa in shaqooyinka qaarkood loo qaato dad aqoon u leh. Sidoo kale, waxaa lagu qasbanaan doonaa in la diyaariyo habab casri ah oo shaqaalaha loo shaqaaleysiiyo. Waxaa la filan karaa in shaqooyinka qaarkood la yareeyo, kuwo kalena la kordhiyo, iyada oo markaasi lagu saleynayo xirfadaha casriga ah ee loo baahan yahay. Dowladaha waxaa lagula talinayaa inay markaasi fiiro gaar ah u yeeshaan isbeddelka weyn ee ku socda caalamka, gaar ahaan dhanka shaqooyinka iyo xirfadaha loo baahan yahay. Shaqooyinkan waxaa la filayaa in mar kasta ay hoos u sii dhici doonaan, iyadoo shaqooyinka aan bini'aadamka looga maarmi karin ay noqon karaan oo kaliya kuwo u baahan xirfad adag, abuuris iyo hal abuur aan si fudud markaasi looga maarmi karin bini'aadamka. Laakiin shaqooyinka inta badan waxaa la wareegi doona tiknoolajiyaddan cusub.